waxa ay xasuusanaysaa waayihii wacnaa markii ay tiyaatarka ku maaweelin jirtay dad aad u tiro badan. Faadumo Cali Nagruuma waxay xiddig ka ahayd fanaaniintii hore. masraxa golaha murtida waa halkii magacoodu ku iftiimay. wakhtiganna waxay ka haysaa xusuus, heeso iyo dhismahan burbursan. tiyaatarkan waa meeshii aan ku soo barbaaray, waa meeshii aan fanka ku bilaabay, waa meeshii la igu bartay, waa meeshii aan ku soo baxay ayadoo qurux badan oo daahyo kala gedisan leh, oo nalal kala qurxan leh, oo daahyo waaweyn leh, oo kuraas qurux badan leh, oo si fiican dhulkan haddaad u jeedaan oo ahaa dhulalka laysku arko markaad kor maraysid. maantana sidaad u jeedaan waxaa la moodaa kor iyo hoosba sidii laf hilibkii laga dirtay oo kale. maamulka cusub ee golaha ayaa qaba in dhismahan uu ku soo laaban doono sidii berisamaadkii. waxaa noo qorshaysan in la dhiso tiyaatarka oo bilicdii uu lahaa jiray la soo celiyo, oo bulshadii uu wacyigeli jiray iyo hawshii uu qaban jiray uu qabto. sidaas ayaa noo qorshaysan. dowladda Soomaaliya ayaa mar waliba sheegtay inay dayactiri doonto golaha murtida iyo madadaalada, balse ballanqaadyadaasi ma noqon kuwo hirgala. dib u howlgelintiisana waxay u baahan tahay malaayiin dollar. ka sokow dhaqaalaha faraha badan ee u baahan yahay tiyaatarkan in dib loogu dayactiro, haddana waxaa la isweydiinayaa dib ma loo heli doonaa abwaanadii, fanaaniintii iyo farsamayaqaanadii halkan wacdaraha ka dhigi jiray qarnigii tegey. tiyaatarka waxaa ku dheggan xaafadda Fiyooraha oo ahayd halka ay fanaaniinta qaranka intooda badan deganaan jireen. isna waxaa saameeyey dagaaladii sokeeye. Fiyooraha iyo tiyaatarku waagii hore meel qurux badan oo dhisan ayay ahaayeen. tiyaatarku tiyaatar buu ahaa, tiyaatar caalamiyuhu ahaa. Fiyooruhuna guryo dhisan oo qurux badan oo fanaaniinta qaarkood lagu karaameeyey buu ahaa.